bisada hargeysa maanta waxa ka nasiib badan tahay qofka muqdisho ku nool horta maayirka hargeysa inuu dhaho bisada ku nool hargeysa ba qofka muqdisho joogo ka nasiib badan taas waa arrin aad looga xuyahay maayirkana arrimahaas looma dirtan asagu inuu faantamo maayirka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan caydiid solteelko ayaa waxa uu sheegay in nafta bisada ee ku nool magaalada hargeysa ay boqolkiiba boqol ka qiimo badan tahay nafaha bini'aadanka ee ku nool magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya haddaba dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ayaan waxaan weydiinay su'aal nuxurkeedu ahaa keeba qiimo badan nafta bini'aadanka iyo waliba sidoo kale bisada waxaanay ku jawaabeen dadka xamar ku nool waa dad oo fiican oo wanaagsan qalbigoodu wanaagsan yahay bisadana waa mukulaal waxba seen ma noqon karaan goos dad waa ayaga dadkaas muxuu ku keenay kulli waxyaalo jiro meesha siyaasadda inuu ku keenaa laga yaabaa goos dadka hargeysa joogana muxmo dadka muqdisho joogana muxmo siyaasad baa dadka isku keentaa imagine waxa laga yaabaa ku keenay siyaasad ahaan ma fahant intaas baa ka jawaab wax loo fasir karaa ma garanayo kulli basad qof bil aadan lagu tilmaamo wax loo fasir karaa ma garanayo dadkii bisadii aron saasuu yiri waa laga fiican yahay horta inuu saadhaa nin weyn waaye dad muslimiin aanana dad walaalaan ahanay annaga marka maxay ummadda muslimiintan waa dad siman ilaahayna ummadda uu qiimeeyay ma fahantay marka aan ma ila fiicnay ay ahaantaydo inuu saa dad u liido dad walaalihiis ah arintaana ha ka noqdo uu ku fududaaday cunsuriyad ma oran karno in kasta dadka cunsurinimo way diideen mogtahay dadka cunsurinimo way diideen cunsurina waa wax dadka liita macna marka aan waxaan leeyahay ma fiicno Cabdiladiif Axmed Aadam waana ku dhawaay barnaamijka waxaan jecelahay su'aalku weydiiyo dadka xamar ku nool iyo bisada hargeysa yaa qiimo badan wallaahi horta maarka wuxuu ka dhawaajiyay waa wax aad u foolxun wuxuu meel ugu dhacay leenahay diintii ayuu meel ugu dhacay sababtoo ah ilaahay ayaa quraankiisa ku dhahay walqad karnamna bani aadama waxmalnaahum fil barri wal bahr inuu asigana ku tilmaamo bisad waxaan leenahay waa sumcad dari waana haddana waa dhibaato ku timid markaasi ama soo wajihi karta markii laga hadlayo xagga diiniyan akhlaaqiyan ma fiicnaan leeyahay wallahi hadalkaas waxaa loo qaadan karaa hadal la iska dhahay waxaan u maleynayaa asigoo maqan joogay inuu hadalka dhahaa u maleynayaa oo maskaxdiisa aysan joogin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Daawud Cabdullaahi Cabdi waxaan leeyahay duqa maayir gobolka Soomaaliland maamul gobolka Soomaaliland Hargeysa waxaan leeyahay hadalku ku hadlay waa hadal qaldan wuxuu ku tilmaamay qab islaam ah oo muslim oo bil aadan oo ilaahay karaameeyo bisad ku tilmaamay waxaan leeyahay ergaas ka waantoobo haduuna ka waantoobin ilaahay baa ku xisaabtama insha Allah والله هذا ضعيف نمو واي وعنصرينمو واي لكن عنصرينمو wax fiican maaha wax wanaagsan maaha waxaan leeyahay kawaanto ilaahayna ma aragtay oo ku xisaabtama hadaan kawaantoobin aan borjas ka bixin wallahi ergaas wuxuu ku keenay horumarkii magaalada muqdisho ee sameysay ayuu ka misaaray waayo dawladda maxamed siyaad bar Soomaaliland sargeystii u dhistay ilaa hadda wada laga ma dhisin magaalada muqdisho way burburtay laakiin way dhismatay horumaray gaartay horumarkii ay gaartay ayuu ka qararsan isleeyahay aniga hadda because asay tomasan oo gobolka haystay oo caasimadda haystay tomasan waxa kama ka qaban gurina kama dhisan ilaa haddana suuq xataa muus ka dhisna aamsana aniga because Hargeysa waa tagay aniga wadooyinkeedana sideedii le waayaan ku ogaay qiimo dilis asaga marka ayaga uu arkay inuu dadka ayaga xagga jiro oo ku qiimo dilaya dadka muqdisho jira ama goboladan kale ka soo jeedo ayuu kale u yiri laakiin dadku waa dad Soomaaliyeed meel ka soo jooga Hargeysa ku noolada ama muqdisho ku noolada dadkuna waa isku mid marka laakiin asagu haduu u arkay inay saas tahay kale waxa laga garaadkiisa inuu intaas gaarsiin yahay ama adika Hargeysa waan dhageysaa hadalkaas kulli qof mas'uul hadal ka soo yeeri kara maaha waxaana aad uga fiicnaan lahayd taa ayada in shaqada asaga loo idmaday uu guto sababtoo waad ogtahay Hargeysa waxa ka jira roobka yaraa hadda maalin dhow in macnaha ay meel kasta qarqiyeen gawaarida ay wadooyinka taagnay dadku wadooyinka ku xayirnaayeen soo marka shaqadii loo idmaday inuu qabsado ayaa kaga fiicnay inuu dad kale u jawaabo wabillahi tawfiiq bisada Hargeysa joogta ayaa dadka muqdisho jooga ka wanaagsan ninka yiri reer Hargeysa mahana garaadkiisu hadlay Hargeysa waa dad wanaagsan oo sharaf leh laakiin asagu garaadkiisu hadlay uma qalanyo inuu maayir noqdo ka meesha laga eriyaan dheela maayirka Hargeysa hadalku ku hadlay horta waa hadal aad iyo aad u xun oo nin bini'aadanimo ay ku jirta
ama qeyrad bini'aadan jirkiisa ay ku jirta inay ka soo bixi lahayn ilaahay qur-aankii wuxuu ku yidhi walaqad karramnaa bani aadama bini'aadanka ilaahay wuu ka qiimo yeelay xayawaanka kale horta xayawaan waa la wadayahay laakiin ilaahay wuu ka sii wada wuu ka qiimo yeelay wuu ka sharaf badiyey xayawaanada kale ee dunida ku wada nool oo saa darteed ilaah uu soo jeeday ayadiisa qur-aanka wuxuu ku yidhi walaqad karramnaa bani aadama marka in lagu matala dadka ku nool muqdisho bisad aad bay u qiimo xun tahay ninkaana waxaan dhihi lahayn kolley uma qalmee ama hadalkii dib ha ugu laabta wuxuu ku hadlay intaa ayaan ugu baxay raalligelinaha naga sii soomaali dhan weli reer Hargeysa iyo reer Muqdisho in ninka maayirka ah in oo raalligelin uu ka bixiyo hadalka uu yiri oo hadalka uu ku hadlay reer Hargeysa waa dad wanaagsan qof walbana hadal uu yiraahdo ayaga kuma jaaj gareyn karno ma dhigi karno reer Hargeysa dad xun way Muqdishona waa dad meel dadweynaha Soomaalida ka wada dhaxaysa cid walba tahay oo shanta Soomaalida ka dhaxaysa hadduu yiri ninka la yiraahdo bisada Hargeysa ku nool ka qiimo badan dadka bini'aadanka Ilaahay karaameeyay ku nool magaalada horta halkaana waan dhaleeceynaa waxaan dhihi lahaa maayirka inuu hadalka uu ka laabto uu raalligelin siiyo bulshada walaalihii ee uu sida xun ula dhaqmay runtii maayirka waa bini'aadan hadal oo calshaan oo san si fiican ugu soo fiirsan ayuu ka hadlay waan dhaleeceynaa boqolkiiba boqol runtii dadka Hargeysa waa dad oo walaalaheen oo kale ah waa dad aan walaalanaana darsanaanay Somaliland iyo Djibouti iyo Soomaaliya oo isku mid marka runtii waxaan dhihi lahaa maayirka Hargeysa inuu calshaan ka bixiyo jawaab degdeg ah oo raalligelin ah ilaanse bisad waa xayawaan bini'aadan isku mid ka dhigay marka runtii waxa waaye hadalkaas waa ka soo fagtay bini'aadankan uu qaldamaa qaladkiisa inuu qaato oo qaladka oo dhaho calshaan qaladkayga waa qaatay raalli noqda raalligelin bixiyo halaas bis ayaa laga rabaa wax weyn maahan marka insha Allah waana ka sugaynaa jawaab wacan insha Allah wuxuu uga jeedaa maalin walba dee 500 qof xamar ku dhimata Hargeysana bisadu inay iska dhimatay moogaa baro dhimatay cid ma disho saas uga jeedaa تمام وحي هرت الخلطبة ويخلطميان موقتها لكن نكن بسد يا حمر يا حاجة شكلها كمودين يمكن وحكوة أبنجة هرجيسة أبني ما كتشرو ملكمود نسكت كادر بيعيد كدلة سماله تحمرنا معنا والبمدحوين وحتمركو كسب مدحتوين إنه كل سنة بس كتجا يسموجا نكن هذا الوحكوة حق السكورة تجا لكن تدتك بقية وحسب حيوت ترشمين حيوت ترشمين حق عدي فضيسا مركا waxaana waa iska waxyaalaha meediyaha maalmo kadib way iska dhamaanayaan waxa ninkaas saas hadalka kama wadin de waa nin iska dhargayo maaragtay nafsadiisa sida ay la taban buu ka hadla maahane ma aha waxa reer Muqdisho waa dad xadaarad leh waa dad ilbaxnimo leh waa caasimadii guriga hooyo Soomaaliya waa aqooniyaha waa كلي أنا فكر كماير كرجيسو ده وحيلة تهاي كلي دتكاس دريه رجيسو عنصر نمي وعكوج تصومال نعب ما أنت كلواكي نقولها فنانكي بيكي ما لا يكي يقولها لا دتك الصومالي كحله which means صومال لماذا وحي كلوين تهاي وحي كلوين معناها الصومال ما كلوين يهرجيس معمول كذا جمعية يقرموا الصومالي مجتمع الصومالي كل واحد إلى عنصرين ما كجرتون دتكاس أساسا لا عنصرين ما وها يصومالي نعب عنصريد وحوا معناها أنا دري وحوا عنصريد وحوا معناها discrimination إن ما أرتي صومالي كلا discrimination just because 1990s كي وحيالا دعين وما أرتي معمول كان هذا صومالي هو جامينه وسن سمينين بمعناها الصومالي كلا هذا جوكتو ومعناه عنصريين وواحد مارتي قرن سوجري مرة كل واحد يلاقون رسومالي لأنها معناها دتك هذه لا حق درنا أو سحون هوران لو قال وحيلتها كل إني لا لا الله ومارتي دورتي وهذا لو في السوق وجوش حاجة لسكم مع الصومالية كوين صومالي الاستودر سامع كل دي لا والله أنا كل أنت أنا ريهر جيس معناها دتك حتى ما كنت كان نيروبي جو حركة دتك في صوماليا صحت أكوها لو أمد هرجيسي كي ما تبركس رسالة معناها وحوي صوماليات باي معناها ما لانديري وح مجلي كرنو وحس مجلي كرنو لكن حيلتها دتك ودت قبيلة لكن حيلتها إني ما أرتلا لها الله وما أرتي
soomaalinimadannadii waxaasa ka muhiimsan ayakana cunsurinimada iska dhaafaan hadalaha ninka inuu apology ka bixiyo waayo Soomaaliya u sameyn xiray because shakhsi walba Soomaaliya oo meel joogo khalad ka gala kamuu galin maamulka Muqdisho iyo kamuu galin khalad السلام عليكم waxaan salaamayaa dadweynaha ku nool adduunka oo dhan inta oo magacayda ee muuqaalkii aqaanta horta qodobka koowaad hal baan ka codsanayaa inaan fartiin fara Soomaali inay israacada midda kale Muuse Bixi hadduu hadalkaas ku hadlay asaga wuxuu ku jira his under Soomaali soo fahmin asaga Soomaali hoosteeda wili ku jira oo dawlad gooni loo aqoonsan ahayn marka waxaan u arkaa hadalku hadlaaya inay Hargeysa ay Soomaali ka qayb badan laakiin Muuse Bixi his same with that cat oo ka hadlay in asaga la qaymo taan u arkaa aniga waa ka bismillaahir rahmaanir rahiim waan ka hadlayaa maayarka Hargeysa oo dhahay bisada Muqdisho Hargeysa joogto waxay ka qayb tahay qofka Muqdisho joogo maayarka waxaan leeyahay magaaladii baaba say ogtay oo daadka iyo biyaha silac ay hagaajisan kula markor dhilaa mid kale waxaan leeyahay waad geeftay raaligelin bixi waad u geeftay shacab dhan oo waxaad u geeftay Soomaaliyeed raaligelin bixisa la rabaan ilaa maray maayar mid kale waxaan leeyahay shacabka Hargeysa waa shacab wanaagsan maayarkana wax qabad hala imaado shacabka Hargeysa halaan maqlay kan video ka maqlay waa shacab wanaagsan laakiin asaga laftiisa waxaan rabaa wax qabad inuu la imaado oo wanaagsan oo guriyihii daadka iyo artay balaacadii wax dhan biyaha saa u qasmeen shacabka waxaan aad baan u cambaareen hortaantaas cambaareen xoog la cambaareen maayarka midga raaligelin ha bixiyo maayarka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي عبد القادر أحمد فارح كنا نول محوها مقالة نيروبي قارهان حافظ اللي هذا كاموكوجي وحان لا ياهي ما يركا هرتا ولقد كرمنا بني آدم إلى هرتا آيات قرآن تاسول ياهي وكراميي بالآدم بصدق بالآذن وحلا سبحان لجماعة وحلا سلول مثلنا معهن مركا ما يركا وحنا لا يهاي إنه هذا الكاس سجى كوكل دنيا هاي وديب يسوون نقطة ما دام وصل السماي بصدق بالآذن مدك على واحد وي شعبك هرجيسة ما يركو إن ماركت هاي أي هذا الكا ويري كجوابان maadaama uu ku hadlayo magacoodii iyo maaragtay karaamadoodii iyo muxuu ahaayay matalaadoodii taasaan ka leeyahay xamarna waa mid u dhaxaysa Soomaali oo dhan oo capital ah oo cid aan ku nooleen inaysan jirin qabiil walba ku nool yahay marka taa asaga waxay ku tahay sharaf darro inuu hadalka yiraahdo bari ka maalna taariikhda ay u galaysaa waayo wax walba waa la recording gareeyaa meesha uu ka hadlayna waa idaacad qofka marka waxa loo baahan yahay intuu sahadlin inuu ka fiirsado aqliguna maaragtay waxa weeye bilaadanka waxa loo siiyay inuu wax ku garto oo maaragtay wax ku miisaamo wax walbana waxay noqonaysaa maaragtay bari ka maalin mid ku soo noqon doonta oo maaragtay difeeta gaarsiin doonta waxaana fiican qofka markuu hadlayo inuu hadaladiisa meesha u dhacayaan iyo meesha ay ka socdaan labadaba uu og yahay ma fahant marka wax walba oo imaan kara oo adduunka maaragtay maadaama uu qofkii sumcadna raadinayo bari ka maal xil inuu ka soo qabto Soomaaliya inuu maaragtay backgroundkiisa in la raac doono taa iyadana ku xisaabtamo taasaan ka leeyahay midda kale aad aan u mahadsantihiin waxaana leeyahay aad u sharaf badan tihiin maadaama sumcad Soomaaliyeed meeshii ay taalo oo maaragtay iyada lafteeda la xaq dhoorayo waxa fiican maaragtay wax walba laga hadlayna in maaragtay laga fiirsado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta maayarka Hargeysa inuu dhaho bisada ku nool Hargeysa qofka Muqdisho joogo ka nasiib badan taas waa arrin aad looga xiyay maayarkana arrimaha looma dirtan asagu inuu faantamo ya xilba loo dhibto xilkiisa ka soo baxaa leeyahay mid kale Hargeysana waa gobolkeena ama statekeena taageersanahay ha isku filnaataa leeyahay السلام عليكم markuu hore wasalaam ayaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto arintii maal hore maahirku dhahay waa arin aad iyo aad u khaldan markaan ahaanteedu waxaan dhihi lahaa arintaas aad ay u khaldan tahay ninkaas waxaan u arkaa inuu Soomaali cambaareynayo oo Soomaali u necban yahay aan ma oonigay markaan arka midda kale bisad waxay ka dilaysaa jir waaba ciidan kalaba laakiin Muuse Bixi
wuxuu macno leeyahay muu arka aniga waxaan ku qiimeynaa kanta comment ma walhaba that's a useless question has no answer way assalaamu calaykum horta waan salaamayaa soomaali weyn meel kasta ay joogto after salaan waxaan macnaha halkan ka cambaareynayaa reer Hargeysa khaasatan ninka dhahay bisada macnaha way yacni inkastoo af Soomaaliga ugu adag yahay way maxaa la dhahay af Soomaaliga maxaa ugu adag tahay Kiswahili borna Kiswahili borna si fiican u garanaa dhib ma lahan soo ninka dhahay bisada way ka fiican tahay Soomaalida joogta xamar ninka sayd oo cambaareenena su'aashaas haddii aan ka jawaabo waxa uu gartaa inay tahay macnaha mujtamaca ku nool Hargeysa iyo mujtamaca ku nool Muqdisho waxa ay la qiimo badan inay macnaha xaqiisa marka u fiiriyo su'aasha inuu kala jeedo mujtamaca Hargeysa waa dad macnaha oo nabad haysto waa dad caqalad dib haysanin marka midaasna waxa maxay la tahay in macnaha barbareenka yar oo ka jiro Muqdisho in uu ka faa'iideysanayo marka qaasatan aan jawaabtaydu waxa waay macnaha meel walba bini'aadanka ay joogaan isku xuquuq inay leeyihiin xuquuqta la wada sameeyahay bini'aadanka bisadii bini'aadan aan isla sami karin midaas waa qalad marka bini'aadanka waxa waaye meel walba ay wada dunida ku nool yihiin waa isla sameeyeen marka nafsadooda in ka taxadaro